wanaagsan meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada warka TV-ga Hilaac qodobada aad daawan doontaana waxaa kamid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay caqabadaha hortaagan in ay qabsoonto doorashada dalka guddiga doorashooyinka ee lagu muransan yahay ayaa waxa ay kormeereen goobaha ay ka dhacayaan doorashada xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxa ay kulan ku yeesheen magaalada Muqdisho madaxweynaha maamulka Puntland ayaa waxa uu sheegay in shirka wada tashiga Garowe uu dhacay waqtigii loo baahnaa wasaaradda dhalinyarada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay shaacisay maalinta berito ah uu dhacayo tartanka kubadda cagta ee maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir madaxweynaha maamulka Puntland ayaa guddi u xil saaray aaska wasiir ka tirsanaa Puntland oo geeriyooday guud ahaan warka TV-ga Hilaac waa naga inta